habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena ugu waaweyn waxay kaliya go'aanka Vladimir Putin ee ciidamada uu ugu dirayo gobolada gooniga uga go'ay bariga Ukraine oo caalamku ay cambaareeyeen waxaana lagu hanjabay cunaqabatayn waxaynu sugaynaa tallaabooyin cadcad oo waxtar leh oo taageero ah oo ka imaanaya xulafadeena waa madaxweynaha Ukraine oo sheegay in dalkiisu uu baranayo xulafadiisa dhabta ah warbixin dheeraad ah ayanu idinkaga haynaa wararkeena kalena waxa kamid ah hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa digniin ku bixisay in ay Soomaaliya dhaqaalaha ka jarayso haddii ay doorashadu dib u dhacdo dadku dhugayaasha haysatay waxa weeyaan dadkii ka turkeen qalbiga ku xidhan Hawo waa gabar qurba joog ah oo dib Hargeysa ugu noqotay si ay u caawiso dadka maqalka naafada ka ah kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan meel kastoo joogtaan aan ku bilaabana dalka Ukraine xiisada ka taagan dalkaasi ayaa si weyn sara ugu kacday ruushka ayaa loogu hanjabay cunaqabatayn degdeg ah in la saarayo taasi oo jawaab u ah go'aankii Vladimir Putin uu ku aqoonsaday labada gobol ee gooniga u istaagay ee Donetsk iyo Luhansk ee dalka Ukraine sida aad halkan ugu jeedaan midabka hurdiga ah waa labadan gobol ee dalkaasi Ukraine iyo sidoo kale waxa loogu hanjabay in iyo ciidamadiisii uu halkaasi u la galayna inay iyaduna saameyn ku yeelanayso Moscow waxaana lagu tilmaamay in laga qaadayo tallaabooyin ka dhan ah ruushka waxayna sheegeen go'aankaasi inuu yahay uu ruushka halkaasi ku galay waa wadamada reer galbeedka inuu yahay mid aan macnaba ku fadhin hadal uu telefishinka goor dambe ka jeediyay ayuu Putin waxa uu ku sheegay in Ukraine aysan marnaba ahayn dal waxa uu dalbaday in dib loo celiyo fidinta NATO waxa uu sheegay in xubinka noqoshada Ukraine ay sidoo kale khatar tahay nuxurka gardarrada wadaniyada ku dhisan ee taliskii qabsaday awoodda Kiev isma bedelin waxa aan u arkaa in ay laga maarmaan tahay in si degdeg ah loo aqoonsado madax bannaanida iyo siyaadada jamhuuriyadaha dadka Donetsk iyo Luhansk talabadan waxa cambaareeyay wadamada galbeedka iyaga oo ku tilmaamay in ay xadgudub ku tahay qaanuunka caalamiga ra'iisul wasaaraha Britain waxa uu yiri waa in ay guuldareysataa qatarta Putin ee Ukraine waxaana hadda la qorsheynayaa cunaqabatayn ka dhan Ruushka wuxuuna sheegay in aqoonsiga Putin ee Donetsk iyo Luhansk dalal madax bannaan ay tahay wax aan caqliga galin The House should be in no doubt aqalka waa inaanu shaki ka gelin in ciidamada galay dalka xorta ah Ukraine ay ka dhigan tahay duulaan wadankaasi lagu qaaday that country and by denying isla markaasna dafiraadda qaranimada Ukraine ay tahay mid muujinaysa marmarsiyaha qatarta ee Ruushka Putin wuxuu diyaarinayaa guluf ciidan oo baaxad weyn for a full scale offensive haddaba maxay tahay cunaqabatayntan Ruushka la saarayo shan bangi oo dalka Ruushka ah ayaa kamid ah kuwa cunaqabataynta la saarayo iyo saddex maalqabeen ayaa sidoo kale iyana la saaraya hantidooda taala UK waxaana laga mamnuucaya in ay dalkan UK soo galaan hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa joojiyay in uu shati siiyo ama sharci siiyo dhuun gaas oo dhawaan la soo afjaray dhuuntan gaaska ayaa si weyn u kordhinaysa gaaska tooska uga yimaada Ruushka ee Jarmalka soo gaara dalalka midowga Yurubna iyana waxay sidoo kale ay ka shaqeynayaan tallaabooyin kale oo lagu ciqaabayo danaha dalka Ruushka in dagaal uu ka dhaco wadanka Ruushka waa wadanka Ukraine iyo in cunaqabatayn la saaro Ruushka ayaa sabab u ah qiimaha tamarta oo adduunka sare u kacay iyo suuqyada saamiyada adduunka oo iyana sabaynaya talaabadan ayaa ka dambeysay toddobaadyo howlo diblomaasiyadeed oo ujeedkoodu ah in xiisada lagu joojiyo hadda Ukraine waxay sheegaysaa in ay jarayso xiriirka diblomaasiyadeed ay la leedahay Ruushka iyaga oo ka cabanaya aqoonsiga Moscow ee gobolada gooniga u go'ay aadan maxamed cabdi saalimin ayaa ka waramaya sidani waa qaabka ay u eg tahay madax bannaanida jamhuuriyadda fallaagada ah ee hadda Ruushku aqoonsaday
balse tallaabadan daandaansiga ah madaxweyne Putin ayay reer galbeedku cambaarayeen kuna tilmaameen mid si cad u jebisay xeerarka caalamiga su'aasha ayaa waxay tahay haddii cutubyada gawaarida militariga ee saacada kadib lagu arkay duleedka Donetsk ay yihiin calaamad walaac weyn leh oo ku soo biirtay meelo kale oo Ukraine ah iyadoo madax bannaanideedu ay qatari ku jirto waxaynu sugaynaa tallaabooyin cadcad oo waxtar leh oo taageero ah oo ka imaanaya xulafadeenna aad ayay iminka muhiim u tahay inaan aragno cidda saaxiibtinimada dhabta ay nagala dhexayso ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa saaka jir gudoomiyay kulan degdeg ah oo golaha wasiiradu ay ka yeesheen waxa ay dawladda UK ugu yeertay qodobo muhiim ah oo cunaqabatayna dhammaan caddaymaha ayaa ah in madaxweyne Putin uu dhab ahaantii u guntaday si buuxda inuu u qabsaday Ukraine iyo xadgudub iyo weliba hoos u dhig dal madax bannaan oo Yurub ka tirsan Kiev ayaa muddo dheer ka cabsanaysay in Ruushku uu abuurayo marmarsiyo dagaal maalmihii la soo dhaafay Ruushka ayaa kumanaan rayid ah waxa uu ka raray jamhuuriyadaha gooni u goosadka una raray Ruushka waxaana uu sheegay inay daadguraysay iyaga inkastoo Ukraine ay soo jeedisay inay noqon karto musaafir isqasab ah TV-ga Ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay duqaynayso aaggaasi inkastoo Kiev ay si adag u beenisay tallaabadii u dambeysay ee madaxweyne Putin ayaa ahayd inuu si wax ku ool ah u saxiixo heshiisyadii nabadeed ee Minsk kaas oo loogu talagalay in lagu dejiyo xiisadda bariga Ukraine madaxweyne Putin waxa uu jebiyay heshiiskii Minsk si uu u burburiyo waan cadaynay inaan aaminsanayn in uu intaasi ka joogsan doonin laakiin inkasta oo tobannaan kun oo ciidamo Ruushka ay u soo dhaqaaqeen xuduudaha Ukraine labada xulufa ee reer galbeedka iyo dariska Ruushka ayaa weli ku hadlaya qaab diblomaasiyadeed laakiin waxa ay ku kala aragti duwan yihiin cidda eedda leh waxaan uga tegayaa weerarada tooska ah ee afkeena lagu hayo jawaab la'aan hadda waxaa muhiim ah in diiradda la saaro sidii looga fogaan lahaa dagaal iyo sidii loogu qasbi lahaa Ukraine inay joojiso duuqaymaha iyo daandaansiga ka dhanka ah Donetsk iyo Luhansk safiirka Ukraine oo fadhiya qaramada midoobay ayaa hoosta ka xariiqay taageerada xubnaha kale ee golaha ammaanka haddiiba ay wax muhiima ka soo baxayaan kulanka maanta wuxuu noqonayaa qoraal aad iyo aad u xooggan oo ka soo baxa safiirada Afrika marka ay ka hadlayaan gumaysiga marka ay ka hadlayaan xuduudaha iyo marka ay ka hadlayaan imberiyaliyadda dadka sida mutadawacnimada leh ugu shaqaynaya amniga Ukraine oo aanay ku cusbayn weerarada Ruushka uu ku hayo dalkooda ayaa hadda isu diyaarinayo inay difaacaan qoysaskooda iyo dalkooda haddii ay taasi dhacdo haddaba si aan wax badan ugu ogaano wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Ruushka iyo Ukraine waxa caasimadda Kiev ee dalka Ukraine qadka toos ugu jira wariye Maxamed Carab maxamed soo dhawow magaaladii wadankii dhibaatadu ay haysatay caasimadiisa joogtaa marka wararkii ugu dambeeyay maxaa ka socda halkaas waad mahadsan tahay walaal waan dhowahay xaaladii ugu dambeysay la xiriidha arrimaha xuduudka la xiriidha waxay ahayd in Ruushku uu madaxweyne Vladimir Putin uu saxeexay heshiis kaas oo uu ku aqoonsanayo Donbasska loo yaqaano waa labada gobol ee Luhansk iyo Donetsk kuwaas oo muddo 8 sano ah u dagaalamayay inay madax banaanaadaan oo ay iskoodu istaagaan shalay tole ayuu madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin ku dhawaaqay balse arrintaasi waxa ka jawaabay oo fiideo uu kula hadlayo lagu baahiyay baraha bulshada madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky kaasoo sheegay in haba yaraatee aanay cidnaba ka baqahayn isla markaana ay ka sugayaan saaxiibadiisa reer Yurub inay gacan ka siiyaan arrintaasi isla markaana qaramada midoobay ay u gudbinayaan arrintani dalalka reer galbeedka ayaa iyaguna ku wajahaya in ay tallaabo ka qaadaan Ruushka isla markaana ay ku soo rogaan cunaqabatayn iyadoo oo dalal badan ay cambaareeyeen oo ay ka mid tahay Ingiriiska iyo Jarmalka iyo wadamada kale ee NATO ka tirsan dhamaantood iyadoo oo la filayo in dhawaan la soo saari doono cunaqabatayn ku aadan Ruushka ama ka dhanaa Ruushka maadaama uu goboladaasi u aqoonsaday gobollo madax bannaan isla markaana ay tahay arrintani arrin ku xadgudbaysa xuduud dhuleedka Ukraine
bal labadan gobol ee ruushka uu taageeray iraahda maadaama arrintii kaleba ay taagneyd oo hore Crimea iyo taasna usii taagneyd labadan hadda soo korortay bal labadan balna fahansi waxa ay yihiin iyo xiriirka ay dadka reer Ukraine la leeyihiin maxay yihiin horta labadan gobol waxay ku yaalaan bariga Ukraine waxayna xuduud leeyihiin Ruushka oo waxa xigaan dhinaca Ruushka tan iyo markii la aqoonsaday ama ay qaatay madax bannaanida Ukraine waxay ka tirsanayd dhulweynaha Ukraine waqtiyadii hore laakiin se waxay kamid ahayd midowgii Sofiyeed iyo Ukraine ba waqtiyadii dambe waxay qarnigii 19aad marka laga soo bilaabo wixii ka dambeeyay kacaankii warshadaha waxa uu gobolkaasi noqday gobol muhiim ah oo dhinaca dhaqaalaha walibana dhuxul dhagaxda iyo birtaba ku caana isla markaana dhaqaale fara badan uu soo galo waqti xaadirkan waxa keenay in ruushku uu aad u daneeyo dhaqaalaha iyo sidoo kale inuu doonayo in uu NATO iyo xulafadooda Mareykanka uu hogaaminayo inuu dhul ahaan iska riixo oo aanu u ogolaan inay ka soo ag dhawaadaan xuduudaha waxaanu aaminsan yahay in guud ahaan Ukraine ay tahayba dhulweynihii midowgii Sofiyeed isla markaana ay ruushka ka tirsan tahay maadaama ay waqti xaadirkan doonayso inay NATO ku biirtana ay tahay khiyaano aad baad u mahadsan tahay maxamed carab oo jooga magaalada Kiev ee wadanka Ukraine mahadsantahay mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter Instagram waxay noo soo socdaa oo aan caawa qaybta dambe idinkugu haynaa dhibta dadka dhugayaasha haysatay waxa weeyaan dadka bay ka turkeen elbay ku xureeyeen hawa oo qurba joog ah oo dib hargeysa ugu noqotay si ay u caawiso dadka maqalka naafada ka ah caawiya caalamka ayaad weli daawanaysaan aan idin xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn caawa
go'aanka Vladimir Putin ee ciidamada uu ugu dirayo gobolada gooniga uga go'ay ee bariga Ukraine oo caalamku ay cambaareeyeen waxaana lagu hanjabay cunaqabatayn. markana hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ku hanjabtay in ay joojinayso howlaha ay ka wado Soomaaliya muddo 3 bilood ah. hay'adda haddii waxay sheegtay aan dibudhac uu ku yimaado doorashooyinka waddanka sidaasina waxaa sheegtay wakaaladda wararka AFP Laura Jarmila oo ah agaasimaha ku-xigeenka hay'adda IMF. sidoo kale IMF ayaa bisha May ee sanadkan waxa ay dib u eegis ku sameynaysaa barnaamijkeeda Soomaaliya waxa ayna sheegtay in maamulka cusub ay ku adag tahay in uu la jaan qaado qorshayaasha dib u habeynta dhaqaalaha waqtigaasi. Laura oo la hadashay AFP waxa ay tiri barnaamijka dib u eegista ee IMF ee Soomaaliya waxa uu u baahan yahay in la soo gabagabeeyo 17 bisha May ee sanadka 2022 haddii la dhameystirin maalintaasina barnaamijka gabi ahaanba waa uu joogsanayaa. taasi haddii ay dhacdo waxa ay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalaha liita ee dalka iyo heshiiska dhimista deynta cafinta ee mid lagu doonayo heshiiskaasi in lagu soo yareeyo lagu dhimo 557 milyan oo dollar. 5.2 bilyan oo dollar ayay taagnayd deynta Soomaaliya lagu leeyahay sanadkii 2018. hay'adda IMF waxa ay sheegtay in kastoo Soomaaliya horumar ay ka sameysay dhanka dakhli ururinta sida canshuuraha haddana dawladda Soomaaliya bil walba waxba ka dhiman qarashkeeda 10 milyan oo dollar ayaana ay hay'adda waxaana lagu qarash gareeya ay tiri oo ka dhiman si shaqaalaha mishaarkooda iyo loogu kabo. doorashooyinka oo dib u dhacay in ka badan sanad ayaa qorshuhu yahay in ay la soo gabagabeeyo 25 Febraayo laakiin waxaa dhiman in ka badan 100 xildhibaan oo dooran lahaa madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka. haddaba digniinta hay'adda IMF iyo saameynta ay yeelan karto waxa qadka magaalada Bristol toos ugu jira Cabdixakiin Yuusuf oo ah dhaqaalayahan oo cilmiga dhaqaalaha ku takhasusay. Cabdixakiin soo dhawow horodhici warbixintanana waad maqashay marka maxay IMF digniinteeda ay Cabdixakiin oo ka dhigan tahay? waad mahadsantahay walaal run ahaantii waa arrin warwarkeeda leh waxay iyadoo abaare lagu jiro iyadoo duruufo badan lagu jiro in IMF-tu waxoogaagii yaraa ee ay siinaysay ama ay ku kabaysay miisaaniyadda dawladda in ay halis gasho ama khalkhal gasho waa dhibaatadeeda leedahay laakiin saas ay tahay dawladdu kalsooni bay qabtaa xiriir aan la sameynay dawladda khaasatan wasaaradda maaliyadda waxaa jirta in ay qabaan kalsooni oo doorashadu ay kusoo dhammaanayso ilaa iyo 2 bilood ee soo socota kadibna aan loo baahan doonin extension in ay ka dalbadaan Soomaalidu inay ka dalbadaan extension amaba 2 bilood oo dheeriya inay ka dalbadaan IMF-ta ayaa suurtagal ah. waa tahay Cabdixakiin haddii ay maalgelintan ay macnaha maalgelinta IMF sameynayso la joojiyo maxay tahay waxa dhacaya oo dawladda Soomaaliya ugu daran oo saameyn kara? waxa ugu daran ay saameynta ugu weyn ee degdega yeelanayso waxa weeye in dawladdu ay awoodi weydo bixinta mushaaraadka khaasatan bixinta mushaaraadka ciidamada waanad garan kartaa oo iyadoo waddanku ku jiro abaaro iyo mushkilado iyadoo waddanku ku jiro haddana haddii 10 kun oo askari oo ciidamadii ay mushaar ay soo wajahdo waxaa imanaysaa in dhibaatooyinkii dhaqaale ee waddanka ka jiray ay sii labalaabmaan oo ay xaaladdu ka sii darto. marka waad muuqataa sida hadda doorashada u socoto 25-kana way dhowdahay marka xaalku muxuu kula yahay inuu noqonayo hadda markaad fiiriso? wallahi dawladda saan hadda ka horey kuugu sheegay dawladdu kalsooni bay qabtaa waxay leeyihiin waxaan soo gabagabeynaynaa electionka 2 toddobaadyada soo socda electionka haddii toddobaadyada soo socda lasoo gabagabeeyo oo May horaanteeda April horaanteeda amaba ilaa March even aakhirkeeda baarlamaanka speakerkii la doorto madaxweynihii la doorto xataa inta aan dawlad cusub ra'iisul wasaare cusub iyo lagu dhawaaqin taasi waxay keenaysaa kalsooni in IMF-ta iyo hay'adaha kale ee Soomaalida xiriir kale leh inay qaadaan
laakiin guud ahaan haddii taasi suurtoobi weydo waxaan waajahaynaa mushkilad aad u culus. waad mahadsan tahay cabdixakiin yuusuf oo dhaqaalayahan oo magaalada Bristol igaga soo biiray. mahadsan cabdixakiin. aad mahadsantahay. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararkeena caawa. ku dhawaad 60 qof ayaa ku dhintay 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay meel macdanta laga qodo oo ku taala Burkina Faso. shaqaalaha isbitaalka iyo saraakiil deegaanka waxay sheegeen in kayd walxa qarxa oo ay ku qarxeen meel macdanta lagu kala saaro oo ku taal gobolka Buni ay ahayd. Burkina Faso waxa ku yaal boqolaal meel oo aan rasmi ahayn oo macdanta lagu qodo kuwaasi oo ku shaqeeya iyadoo la socon waxaana joogto uga dhaca shilal. abaar iyo biyo la'aan ka dhalatay go'doomin ay sanado badan ku hayeen magaalada Dinsoor al-shabaab ayaa ku qasabtay dadweyne ku noolaa degmada in ay barakacaan waxaana la sheegayaa in dadka degan halkaasi ay ka carareen iyaga oo isku dayay inay u baxsadaan xaaladda aadka u daran arrintan ayaa ku soo beegantay xilli ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble shalay uu ka codsaday beesha caalamka in laga caawiyo abaaraha ba'an ee dalka saameeyay. saadaaliyaasha hawada ee Portugal waxa ay sheegayaan in dalku ay soo food saartay abaartii ugu darnayd muddo ka badan 15 sano ah 90% dalka waxa saameysay xaalad abaara beeraleydana waxa ay sheegayaan in si gaar ah ay u taabatay waxa ayna ka dalbadeen dawladda kaalmo sanadihii la soo dhaafay abaar tan la mid ah oo waxay horseeday in xilliga kulaylaha uu ka kaco duurka dab. markana wararkeena ciyaaraha iyo qodobada ugu waaweyn ciyaarta. Champions League caawa Chelsea ayaa marti gelinaysa Lille. Chelsea ayaa dheeli doonta iyadoo uu ka maqan yahay Mason Mount oo naadiga la tababaranaya balse aan ka soo kicin dhaawac anqowga ka soo gaaray kulamada kale caawa dhacayana waxa kamid ah Villarreal oo markii ugu horeysay 16 ugu dambeeyay muddo 13 sano waxay is arki doonaan Juventus. weli Champions League aynu ku jirnay UEFA ayaa xaqiijisay in xilli ciyaareedkan ciyaarta finaalka laga wareejin doono St. Petersburg sabab la xiriira xiisada ka dhex taagan Ruushka iyo Ukraine. xiriirka kubadda cagta Yurub waxa ay qiimeyn ku sameyn doonaan xaaladda oo dhan ka hor inta aysan gaarin go'aanka ugu dambeeya balse waxay eegayaan garoon hor leh sidii lagu heli lahaa muddo gaaban iyadoo markii saddexaad ay tahay ilaa ay garoomihii hore loogu dheelay ee ku yaalay wadanka Spain. markana Xaawo Qodax waa gabar Soomaaliyeed oo aan dhagaha waxba ka maqal waxa ayna ku nooshahay waxa ayna wax ku baratay aan iraahday dalkan UK dhawaan ayay Hargeysa tagtay sida ay wax ugu qaban lahayd xaaladda ay ku nool yihiin dadka dhagaha la ee halkaasi ku nool iyadoo ku tilmaamtay inay ku jiraan nolol xabsi oo kala ah. Xaawo ayaa intii aanay qurbaha u dhoofin waxa ay ku noolayd magaalada Burco ay ku dhalatay waxa ay xusuusataa sidii ay nolosheedu waqtigaasi ahayd. magacaygu waa Xaawo Qodax waxaan ku dhashay Burco kunana koray anoo weyn hooshan jira ayaniga belay halkaas baa ku koray iskuul batigin ee wax barashana marag marka caruur ayar yaraan shaarkana iskuulka tagi jireen aniga waa ka xanaaqi jiray waxaan aniga iskuul batigi jireen dabeetana waan ka niyad jabay barasho weeyay marka hooyay ku tirina meelay booraba qabano iskuulka yeelay baa ka jira waxbaad baranaysaa waxbaad qoraysaa hooyadii waan yaabo burcabo ku baarag qof dhigo wax baranaya si aan booraba ku baran karaa hooyo way ka xisay markii booraba kaysay aan boorabanin ayaan kay macallimiin dhigo yeelay qoriga waa yaabo qof dhigaysay qori karaya وهوي فرحت لوي waxbarashadayda halkaas ka bilaabatay 2 sano aan joogay Booramo dadaal badan sameeyo wax qoray wax khariyo wax fahmi ayaan ingiriiska tagay dadka dhugayaasha haysatay waxa weeyaan dadka bay ka turkeen yelbay ku xudayeen marka inta free laga dhigo dadka soo dhex galaan wax loo baro shaqo la siiyo meel walba loo ka turjumo soo fahmeen waxay xaq u leeyihiin waxaan xaq u lahayn shaaqiga raacaan wax kasta la baro diinta xitaa waxa badan kama yaqaanaan masaajidka loogama turjumo maalinta jimcaha wadamada gaalada anigu adabaan ka yimi masaajidka jimcaha kasta waa loo turjumaa kuwan looma turjumo
wasiirka diinta waxaan lahay inuu sameeyo masaajidka in meel lagu xidho moor ay ka daawadeen oo jijbaan loo qabto xaggana ragga xaggana dumarka faatax ma garanayaan quraar ma garanayaan marka waxa fiican diinta loo dhigo oo meel loo furo wiigii 2 cisho ay ku soo kataan suuq maadaan hablaana saalo kala jeexo xagaab waa lagu sameeyaa waxay xaq u leeyihiin in la baro ingiriiska shaqo doon lahayn CV loo sameeyo tababar badan bay u baahiin anigu hadda waxaan joogay 2 matis abaabulid bay joogay dad badan baan la hadlay in iskuulka booribina waan tagay xaaladiisa waa soo arkay waagii qalbiga baan u geeyay wixii aan woodiyay waa u sameeyay laakiin wax badan bay u baahiin iskuulka boorib waxa ku soo arkay 31 ardaya oo yar yar ugaagtooda waan eegay inta iskuulka waxa joogto hooyo ilmo yar oo ifay wada tibaa joogta waxay ku tii waxaan rabaa inta la tabaro faralay barasa wiilkayga oo shaqay lahaa waxa jiri meel uu iskooye ma fahmo marka hadda halka waxaan joogay 6 bilood ilaa iyo ay wax soo hagaageen wax soo kacaan aan wax arko oo dhagolayaasha wax la qabto mooyaane ma tagiyo xusuusnoow wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin intaan habeen dambe kulmi doono nabadgelyo